بسم الله الرحمن الرحيم aad baa mahadsantiin meeshan dhibaato aad weyn baa ka jirta magacaygu waa maxamed matalan anigoo kale anigiyo walaalkay baan nahay waxaan u soconaa process waxaan ka nimi magaalada Burco waxaan joognaa imka 2 bilood iyo badh hawlahayagii kala dhan waan soo dhamaysanay haday baasaboorradii waan haysanaa warqadii CID-da waa haysanaa ku maaliyadda waa haysanaa laanta socdaalka waa haysanaa wax walba waa haysanaa ilaa hadda bil iyo dheeraad ayaan sugaynaa dad 2 bilood sugaya dad 3 bilood dad 4 bilood fadhiya intaba way joogaan marka dadka waxba looma qabto maalin walba dad yar baa la yeeriyaa dadka yarna 3 meelood oo 2 meelood wala soo ceshaa waxa lagu dhahaa waxa ka dhiman maalin walba wax yar oo macna lahayn inta kalena waxa lagu yiraahdaa bil baan kugu dhufanaa 3 bilood kuma siinano safaaradda halkaas ku taal maxaa idinku halkeen fariisiyay waxaan siiyay safaaradda soo dhaweyn kama helo meel la fariistano noomay samayn halka hadda istaagtana askari ba qori kugu soo yeerinaya asraa cabashadaada ugu gudbi iyo inta joogtay in waxa aan aad ugu mahad celinayna dadka iskala hotelkan oo iyo dhirtan oo kuraastan dadka siiyay oo halkan ku soo dhaweeyay oo inta ay hawshoodu ka dhamaanayso halka fadhiya waxna la weydiin dadkaas aan mahad celinayna safaaradda Itoobiya iyo shaqaalaheeda soo dhaweyn dadka ma siiyaan iyagii bay sii cadibayaan adiga walaalka imisa joogtaan garowe waxaan joognaa imka 2 bilood iyo badh baan ugu joognaa hawshin xageeni maraysaa waxay noo maraysaa bil baan hadda waxaan sugaynaa fiisaha kaliya oo warqadeedii laga gudbiyay waxaana haysta laanta socdaalka ayaa haysata laanta socdaalka iyo fiisayntana waxa iska quseeya anagu ma aanan garan sababtoo waxay warqada CID-duna soo siiso annaga iyo safaaradda inaan cid noo dhaxayn aan toos waxayga u geysano fiisahana siiyaan laakiin waxa dhexda u fadhiista nimanka laanta socdaalka nimankaasana warqadaha haya ilaa iyo lacag fara badan ay dadka ka cunaan ma gudbiyaan adiga inta lacag laga qaatay hadda inta lacag laga qaatay aniga $100 hoolaa laga qaatay ilaa haddana wax loo gudbiyay ma jirto $100 ka qaatay waxaan naga qaatay ninka laanta socdaalka markuu ka qaadanay muxuu ku sheegay wuxuu noo sheegay inuu bari gudbinayo ilaa haddana kuma gudbin miyaa iyo haddana inuu gudbin maxaa marka haddaad dhalinyaradii doonaya fiisaha Itoobiya maxaa hadda in qorshe waxaan anagu rajaynaynaa wax kale qorshe nooma jiraan ilaahay baanu sugaynaa iyo madaxda Puntland in ay wax ka qabato wasiirka arrimaha guduhu inuu soo farageliyo arrintan oo wax ka qabtaan oo nala wareysto oo waxa jira la ogaado ka bacdina wax laga qabtaan rajaynaynaa dadkan qaarkood waxay leeyihiin waxaan lagu xiray in aan tigid ka goosano Ethiopia Airways si yaani diyaaradda loo raaco arintaasi bal sharaxaad ka bixi way jirtaa in waxa ay u danaynayaan iyagu diyaaradda sababtoo ah fiisaha kala 3 bilood waa $60 laakiin diyaaradda markaad goosanayso $440 iyo $60 fiisaha $500 weeye family 8 qof ama 3 qof ama 4 qof ma kari karaan dadku iska wadnaha dadka intii kari kartaa way goosatay laakiin dadka aan haysan ee awoodin 4 bilood fadhiyo meesha qaras ka dhamaan ma awoodaan maalin walba waxa loo shaqeeyaa 5 casho la shaqeeyaa usbuuci 5 casho 3 kamid ah waxa loo shaqeeyaa dadka diyaaradda inta kale dadka dhulka loo shaqeeyaa 5 qof ama 8 qof marka la yeeriyana waxa la soo celinaya 4 baa la soo celinaya cabashadaas laanta socdaalka iyo CID-da iyo dawladda Puntland ma gudbiseen inta dawladda wali anu hore uma aan gudbin haddaan halkan dawladda ugu gudbinayna laakiin laanta socdaalka maalin walba loo gudbiyaa waxbana kama qabtaan waana iyaga nimanka waraaqaha hayste aan soo gudbin maalintii safaaradda imisa qof bay qaabishaa waxay qaabishaa adu 15 qof bay u yeedhaa laakiin waxa fiisaha la soo siiyaa 4-5 qof kama bataan inta kale waxa lagu soo celiyaa ama waxba ka dhiman ama adu marba waxba lagu soo celiyaa laakiin maalintii waxay qaabishaa adu 5 qof kama bataan aad baa ma